xafid walaal magacaygu waa Mahad Yuusuf waxaan ku noolahay magaalada London marka ugu horeysa ana ka codsaday in videogan laga duubo waayo waxa ay u kallifay dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay waxyaabo fara badan waxaan halkan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya ugu horeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ummadda muslimiinta oo dhammaan wixii maaragtay ka geysan kara sidaan wadankayga ugu laabani lahaa in ay maaragtay garab qabtaan meeshan waan ku dhibaataysana homeless aan ku ahay wad ujeeda garaafooyinkan meel aan ku hoyda malaha dhibaatooyin aad iyo aad u adag aan inta lagu soo koobi karin ayaa gaaray marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inay ila soo xiriirto lambarkeygana waa halka oo gudbina waxaan nooga warantaa waad sheegtay dabcan ila soo xiriirtay waxaan jecelahay marka hore nooga warantid adigu sidee Yurub ku timid waa maxay dhibaatada ka soo gaartay xagee ka soo bilowday taariikhkaaga ka soo bilaabay wadanka Talyaaniga Liibiya ka soo galay dhibaatooyin fara badan aan soo maray waxaan islahaa maalinta ka dambeeyay waa ka bixisa dhibaatadaysan intaas oo wadan aan u soo gudbay balse ugu dambeyn waxa waa Yurub sida ogsoontiin waa 28 wadan meeshaad mar fara dhigatid iyo wixii report laga qoro meel kasta way yaalaan taasana ugu kalliftay sidan u lahaa magaalada wadankan marka tagtid aad ka bixisa wadankan intaasan ku soo gaar dhibaatooyin fara badan aan la soo koobin soo Liibiya soo martay Talyaaniga soo martay iyo wadamo badan oo Yurub ka tirsan sida Jarmalka oo kale sida Jarmalka waliba waa lagu xiray Jarmalka yani cirbada la duray yani si waxa la ugu dhaqmay bini'aadanimada ka baxsan sida Denmark oo kale sidoo kale iyo wadamo fara badan aan soo maray waa gartay Jarmalka marka joogtay waxa jirtay adiga sheekaysay in lagu geystay jirdil iyo dhibaato kale dhibaatooyin fara badan la geystay jirdila la geystay waxyaabo aan la soo koobi karin ma aragtay yani ugu dhacay balse hadda waxaan ku faraxsanahay markasta in aan wadankayga ku laabto dadka soo tahriibay ama dadka Yurub u soo hanweyn waxaan aniga u sheegi lahaa wadankooda inay ku noolaadaan ama ha ku dhintaan ama ha ku gaajeysnaadaan wadankooda wuxuu dhaamay inaysan lahayn waa gartay hadda Ingiriiska joogtaa waxa ku tahay homeless habeenkii guri iyo meel seexatimo haysato wajigaaga nabar weyn oo madow baa ku yaala ishu way ku castahay waxaad ii sheegtay inuu nin kugu dhuftay dilkan yaa ku geystay qof cadana ii geystay anigoo maaragtay iska u socdo inaan waalana inaan fiyo wahay warka ma haayo wadooyinka saas u mara baabuurta xataa way jiiraan والله لما soo koobi kara dhibaatada ahaas waxay caawinayna mala dhibaatooyin fara badanna waa la geystay ana haddana halkan ka cadeeni karin balse waxa waay ma aragtay qadar rabbi waa ku safarsanaa wuxuu ilaahay ii qadaray aniga taasan aaminsanahay waa hagaag inaan ka baxayna waa aaminsanahay insha Allah dan wadankayga ku laab waa hagaag waxaan jecelahay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago walaalayaal Mahad Yuusuf telefoon numberkiisa ayaa wuxuu ku qoran yahay shaashada hadda in kaga muuqda waxaan in ka codsanayaa si walaaltinimo leh oo Soomaalinimo leh oo sharaf leh ninka walaalka dhalinyarada ah dhibaataysan wajigiisa inuu idin soo hor fariisto oo ay dib ku tahay ogolaaday si uu danta u leeyahay u gaaro in aad fadlan si hagar la'aan u soo caawisaan magaciisa waa haysataan xawaaladaha dhan waa taqaanaan aad u soo caawisaan Mahad wuxuu kaloo noo dulmaray inay dhibaato Yurub ka soo gaartay dhibaatada Yurub ka soo gaartay waxa jira qaar la sheegi karo hadda idin la wadaagnay iyo qaar kale oo aan idin la wadaagi karinin oo anshaxa iyo Soomaalinimada midnaba aan ku wanaagsanayn waxaad iiga warantaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa adigoon hoos u gudagelaynin ee soo gaaray inta aad Yurub joogtay iyo waxaad uga cararaysid maanta Ingiriiska oo aad u rabtid in Soomaaliya lagu celiyo waxa waayo dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa ka mid ah meel lagu xiro qol lagu xiro oo maaragtay anigoo marka dhan laga dhigo camera qolku uu ku xiray yahay sariir lagu xiro oo la iskaga kay dhigay dad dawladda aanan luqadina aanan garanaynin awoodna aanan u lahayn meel aanan ka dacwoodan aanan awood u lahayn luqadina aanan garanaynin wax caawina ehelna aanan ii joog min dhaahadu xataa ehelkaaga joogo inaysan ku caawin karin aan aaminsanahay aniga wadankan qurbaha ah waayo ma aragtay system u yaalo يعني وجيه فر بدنا لقوا صومرة مركب حواي أهدي أهدي وأركتي ضد بدنا رباطين صومالي هوان أركي ميل أنا عن كحرنا وأركي أو يدها يا ما أركتي ترجمان ما تهاي ماشان ما تكشف صدق يدها وان أركي أنا جن عن تهاي سيدينو كلام هاي لكن أنا عن إلهي إسكبر ياي أنا مثلنا مركز تينا كبه هاي ماشان عند سود داس مال الله مال الله وحر جرمال كان ولا وحر دلمر كان ولا وحر عند سود داس مال عن إلهي كأهن
waa gartay waxaad iiga sheekaysaa hadda ka hor inaad damacday naftaan yara ilaahay kuu ammaansaday gebigeedana inaad ka takhallustid oo maaragtay tareennada iyo waxaa isku dhigtiin maxaa kugu kallifay waddanka Jarmalka ee ahayd taas meelaan ku xirnaa waxaan ka soo baxsaday 5 mar markay ugu yartay 5 maraan ku qiyaasay 5 maraan soo baxay waa hamigeygu waxay ahayd inaan meeshaas ka baxsado markaan baxsado waa la soo qabtaa waa lagu soo celiyaa ciqaabtan ku jir ciqaab ka daran la geliyaa waan ka baxsada marka ugu dambeystii waxaan rabay inaan tareen isku dhiga tareenka markuu soo dhaweeyay tareemada dheereeyana uu ahaa no stopka qadar rabbi laakiin sama aysan dhicin in uu tareenkaas injeero anigoo waxaan is arkay meesha ka boodo dhanka kale haddana joogo sidaas aawadeedan haddana la soo qabtay meesha lagu soo xareeyay ugu dambeyn aan haddana ka soo baxsaday markii dambe waa gartay waxaan ku faraxsanahay dadkan Soomaalida live ku daawanayna ay ku wada faraxsan yihiin aan ogahay in ilaahay uu ku caafimaad yeelay ku badbaadshay naftaada inaad haligtana uu ka badbaadshay waxaan ka ballan qaadaynaa insha Allah tacaala inaan ku garab istaagno waxaan rabaa inaan hadda u gudubno waxaad tiri fartiin waxaan u wadaa dowladda Soomaaliya madaxweyne محمد عبد الله فرماجو iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayr fariinta aad rabtid inaad u sheegtid halkan toos iminka uga sheeg mar labaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegaa maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan in leeyla soo xiriiro waddankaana laga saara يعني taas waa muhiimadeeda ugu horeysa sababtu waa maxay dad badan ba halkan u soo cararaya aad uga cararaysa wallahi anigu waxay tahay waan arkay Yurub dhibaatooyinka yaalla waan arkay يعني dad badan oo dhibkooda la aamusana waan arkay balse aniga maanta waxaan ku faraxsanahay wadankayga ama aan ku noolaada ama aan ku dhinto intaas baan ku noolaa wadankayga waligayna cid istaajisay ma aanan arag magaalada Muqdisho waan joogay meelo badan waan joogay cid istaajisay waligay ma aanan arag laakiin sabab wadankan waxa waa caqabado fara badan iga soo maray dhibaatooyin fara badan iga soo maray يعني niyad fara badan balse ma aragtay alxamdulillah anu waxaan aaminsanahay inaan ka baxay insha Allah biidnillah alkareem caawa haddii aadan kaalmo helinin iyo walaalo ku caawiya xagee hoy ku seexanaysaa wallahi hadda ma aragtay in muddo aabo sidan u socdo waaga wuxuu iigu bariyaa anoo iska socdo marmarka qaar sidan fasaska u saaran waaga ii bariyaa anoo 74 saacadood soo jeedo waan arkaa anoo 24 saacadood soo jeedo waan arkaa alxamdulillah laakiin ma aragtay waan ka baxay insha Allah taasan aaminsanahay aniga markasta waa garatay waxaan samaynayaa anigu shakhsi ahaan si walaaltinimo ah islaamnimo ah dhiigga Soomaalinimo ah in aan hadda caaw kula raadisho hotel aad seexatid oo aan ka bixino dadweynaha Soomaaliyeed ee dunida daafeeda joogana wixii intaan ka dambaysa in ay garab istaagaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waliba wasiir Axmed Ciise Cawad waxaan idin ka codsanaynaa ninka walaalka sharci Ingiriis kuma lahan sharci la'aan baa haysa dalkiisii hooyo ayuu doonayaa inuu u noqdo fadlan waxaan idin ka codsanaynaa sida ugu degdega badan inaad noola soo xiriirtaan oo idinkii asaga isugu keen xirno Turkish Airlines baa halkan ka baxda warqad dawladeed baa u soo diri kartaan warqadda dawladeed waxa ay u ogolaanaysaa Turkishku inay diyaaradda saaraan dabadeedna dalkiisii hooyo uu dib ugu soo noqdo uu ehelkiisii iyo qaraabadiisii u tago walwal iyo murugo badan ayaa ka muuqda halkan kama sheegi karno mahadyara waxa soo gaaray oo dhibaato ah oo silica maxaa la yiraahdaa inta la eg brother waxbaha oynin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ku gargaarayaa iyo walaalaha Soomaaliyeed nin baa tahay adkayso insha Allah ta'ala dhibka waa ka baxaysa hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inaad walaalaha Soomaaliyeed magaciisa iyo telefonkiisa waa idin soo qornay fadlan ha isaga soo wicinina dadka dhalinyarada mararka qaar kood fudaan laga yaabo si maxal lahaa sheeka iyo maxal lahaa say wax ku gaareen iyo say wax u dhaceen iyo laakiin fadlan xawaalada kuugu sokaysa tag wixii aad awoodid u soo dir magaciisa iyo telefonkiisa waa haysataa haddii uu noqoto inuu waddankan ka baxo iyo hadday noqoto inuu halkan guri looga kareeyo uu dego aabbayaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay walaalka garab istaagaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo sharafta leh oo inankii kale boqolaalka kun oo lacagta u yabo hayay hooyooyin iyo gabdho Soomaaliyeed oo fadlan numberkiisa qaata ilaahay dartii wajigiisa kariimka uga soo buuxiya maxaa la yiraahdaa u soo buuxiya akoonkiina aakhiro ilaahay idin buuxinaya ugu dambeyntii maxaad oran lahayd ugu dambeyntii waxaan u sheegaa dadka Soomaalida yani u soo tahriibay wadamadan in aysan safe ahayn wadankan oo Yurub inuusan safe ahayn waxa safe ee wadankaaga ku noolaaw yani taasa ku dhan sidan aaminsanahay aniga
waayo ma aragtay waddankaaga waa dad luuqadiisa aad wada garanaysid waa waddankaaga waa dad Soomaaliyeed cid ku dhibaataynaysa ma laha balse waddankan seefna ma jira wax xuquuqul insaan la dhahaynaya in lagaga sheekeynina waxaas ma jiraan intaas Soomaal ana maray ana intaas ma aragtay gud raadiyay wax ay caawiyo wax cid ku caawinaysa ma laha marka waxaan dhihi lahaa ma aragtay qof kasta waddankaaga intaad ku soo tahriibi lahayd iyo intaad ma aragtay yacni haasatidba waddankaaga adoo ku noolaatid wax ku dhaamo ma laha intaasan aniga fari lahaa ummadda Soomaalida waxaa jirtay gabar dhalinyarada Soomaaliya aad kula kulantay wadamada Yurub Finland iga sheekayay waxay ahayd gabar yar waxaan ku qiyaasay 23 jir waxa la dhahay Shukri anigoo Finland wax yar joogo oo kaam ku jira subaxa la imaado waxa lagu dhahay إنه وقف حنوسنا أنا تلفون أنكو هذا هذين ناقن شو كان صدام حنسلا ما دابا معركة هاي قف معركة يعني ريفوجي أو هذا شرع لهن قبر شرع له كراس ماشي أساسا إسلها فرصة وين ها أيجا نوعي ما دام وحيران وروح حتى قف حنوسنا هاي والله حرا اللي يقوله إنه ما حنوسنا أنكو ده أنا جماعة معركة قف معركة عاصمة قبضنا هاي وحيقول ما إلا والله حرا جاري ماشي الله يسوق التاي كده واحد عضي ترجوانا اللي وعناك سومالي اللي وعناك وحيقول هذا أما يل أما ديد تسكان إنه كودان أي ديارو إيهنا ده ترعس إن رعدي كلا نقصبها الجوجو حاجة الجوجو مال الجوجينا اللي يقوله أقدر مركو حنقول هذا وضن كإسكاجتك أنا قحوتي المدينة أنا خبينه إسكاج الله بتف سودان يبان كاستان كلها وحيقوله مايا من لابنيس أوكي حنقول هاي أنا إله أنت لا تقولي ما دابه تن عررا وضن كأنا جرانين مالا عرر أنا جرانين وافراعي لكن سأنا إلى أن تلاذ صارتي سيد اللي وداي مدة أفرتن دقيقة وحليجي إسبيتال الكوستي ساعة بس ساس مركان أوجلا إسبيتال كدد وحا كجرا وايل يدد مارك أجنبي يدد فربضنا كجرا هذا قلا الله يقول على كاميرا كل حراد ماشي يريد اللي جماعة يرين لك يريد أن تاجد قبر بحا أرك سرير لجودي حياة الصومالي اللي بتنجره بريلات أو فريم بنفسران قبر دي وجي كده مركان أقوى صدق إن أقف Soomaali تهان لحظة والله Soomaali ما تاي وإسكأوس ويقول هذا Soomaali ما تاي ها ترجمة ما تاي وهذا مايا أنت ما كشغال سامايا مركان ساس أنت سلجارني أو ورثي أنت ما مرث أو عن كل حي ما يقول كجرت ماشى ويقول هذا سجال بلادهم كجرا إتجاور حسنا ملاها إن كمان اللي جا صوته يقول هذا مركي أرنتاس أي هذا والله ما أنا جاي كذا صار لي قبل تقول كي الله يقول تور waxaan ku dhahay maadaaba meeshan ay dhakhtarta isbitaal ay tahay aad ileedihiin gabadh sabab inaan ku wareesto maxad ii diidantiin aan ku dhahay marka waxa lagu dhahay idab daranta meeshaada galaa lagu dhahay maxaad u maleysay inay kugu diidaneen yani information inaan kala qaadano aan is ogaano qof kasta wuxuu meesha ugu jira wala kala waardiyeenay waay anna waa fikir marka haday meesha isbitaalka magaciisa ma xasuusta aniga magaaladu ku yaalayna waxa waa lambaranda Finland lambaranda ma ayaa lambaranda lambaha ma qarafkooda lambaranda la meeshaas ee kadibna adiga wana la kala ilaaliyo meesha marka lagu xir anigana waxaan waa fikira waxaan aniga tahay ma aragtay meeshan inay tan meel safe ay tahay meel wanaagsan ay tahay waa ogaaday balse hadan isa sii waala aniga inaan riski iyo ma arag ka badan aan galay waan isdejiyay kadib gabadhi waa la waday wallahi imaad turjubana la qabtay waxa ka soo dacwooday shaqaalihi meesha oo kam ka soo dacwooday dadka la dagaalay la dagaalan ku dhahay aniga dhanba wax yaraan joogay ma dadkaas ka kaaso aniga marka waa u jeedaa in leeynaba awood malihi haligelin aan bixinaan ku dhahay marka waxaan ku xasuusnaada inaan haligelin waa dad wanaagsan waa fiilan dad wanaagsan waa fiican aad soo dhaweeyeen ku dhahay haddana way bixin waxay dhaw soo laabanayna oo soo sameeyna banaanka inta way soo haddana sidoo kale ugu celiyay kadib waxa la igu dhahay saddex mid kala door inaad inta ku noolaatid inaan meel kale ku geeyno oo إيشك بوليس أو كلا إن كام كوجو عليه waxaan ku dhahay aniga kaamka amaanna waa laga helaa dadna lama dagaala kaamka lagu celi kaamka lagu celi habeenkii seexday subaxda hadana anigoo iska joogo 10ka subaxnimo oo kala meel waxa jirta booste ee warqadaha laga fiirsada qofkii warqad u soo aniga meesha taaga waxa lagu wargeliyay 10 saac 4 saac yani 10ka subaxnimo iyo barka in meesha lagu celinayo hadan kaamka laga waday awal kaamka leeyay meesha markii waa laga soo wada waxa leeyay kaamka saddex may kala dooran lagu dhahay inaan inta ku baahneen inaan ma arag meel booliis ku xireen ama inaan kaamka kugu celiyeen kaamka igu celi kaamka markii lagu celi galbi habeenkan seexday subaxdii markay 10ka subaxnimo ay tahay alla imaad anoo meesha taagan waxa lagu dhahay 10ka iyo barka meesha lagu celina isbitaalka gabadha ku soo arkay waxaan ku dhahay aniga ilaa shalay wax mucunin cunaan soo gadanaa fasaxa waayay ugu dhahay gudihii aan ku laabto qolkan degnaa laba sarwaalan isku soo xirtay iyo jaakadan isku soo dul xirtay kadib waa soo baxay meel
meelaan imaaday oo tareen laga raac tareenka inta meesha u socdo ma aanan kala garanayn oo iska fuulay tareenka meesha suuligan galay tareenki laba stop kadib waa soo baxay kursigan fadhiis waa la imaaday tikit ma hayo hadda ii jaro 10 euro waa laga qaaday kadib stopkan ku degay waxaan fiiriyay warqadii Helsinki meesha iga jirta dhankan Helsinki aaday tikit kalaan jirta Helsinki taga Helsinki markaan tagaan waxaan sii aaday qof aan qaraabanahay oo jooga oo caasimada magaca sheegay meeshaasan tagay kadibna qofkii markaan u tagay qofkii haddana lacag isoo siiyay sidaan ku soo laabtay fiilan aan ku Sweden ku imaaday markaas kadib waxaan soo go'aansaday baasaboorkan haystay inaan Canada aado intaan ku soo galay markaan ku soo galay anoo Heathrow ka baxay Gatwick anoo ka baxay lee qabtay eelborka Gatwick anoo ka dhoofay lee qabtay sidaasana inta ku degay waa gartay hadda halkan sharci kuma lihi sharci mali hal sharcina mali sharcina kama rabo maanta haday dhaan sharciga ugu fiican sintiisiga lagu sinaatay la dhahan mar rabo maanta Yurub waxaa jira Canada rabin Mareykan rabin Ingiriis rabin Yurub rabin wax aan rabo mala wadankayga mar haddaan wadankayga taga alxamdulilah waa ku qanacsanahay waa gartay waxaan arkay sharciga kumeel gaarka oo dadka soo galootiga la siiyo aad haysatid waxa ku qoran aadan shaqaysan karin inaan shaqayn karin waxa waaye waxa ku qoran no work in no public fund waaye haddaan no work in no public fund lagu siiyo oo waxa waaye register creation waa adag waxa waa qaxooti ahaan inaad yani u diiwaan gashantahay bisa meeshaas lagu cadeena iyo dambi haddaad gashid laga soo raadin kara magacaaga iyo waxaas bes ma jiraan wax dambi oo halkan ka gashay dad wax dambi aan galay malaha Yurub oo dhan wax dambi aan ka galay ma jirto aniga aan dambi ka galay malaha waa gartay maanta haddaan dambi galay lahaasaan banaanka uma taagnaan ilaa meel lagu xiri lahaa waa gartay dawladda aan galay waa gartay waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro hadda ku daawanaya oo ilaa 1500 qof ah ku daawanaysa Soomaaliya aad iyo aad bay ugu xun yihiin dhibaatada ku haysata qaarkood waxay ku weydiinayaan halkan dad ma ku joogaan Ingiriiska family iyo qaraabo hoose jooga malaha wax family iyo wax qaraabo inta ii jooga malaha wax ii joogtana malaha meesha waxa daay ii sheegtay inaad basaska raacisay oo daawadayaal waxa jira London basas habeenkii shaqeeyo oo habeenkii oo dhan socda sida maalintii oo shaqeeyaan haba yaraadaane laakiin shaqeeya ninka odayga basaskaas oo habeenkii saaran yahay baskaas marka habeenkii oo dhan marba wuxuu tagayaa xaafad buu tagayaa saas ayuu waagu ugu bariyaa baska dhexdiisa ayuu seexday irideeda waan seexday koreeyay Luna House Corridor Luna House okay Luna House waxa weeye meesha فيديو قال محل أسرع عصبي ورفض يعرف الحدود كان على كان أسرع عصبي الحديد دولة الصومالية الجونية إن أي كان عاوزه وين المقصاء وعرفته كل كسوه يوقف على مدى ذاك على إلين كلف جينا ذكينا تقارا حن عاونية إن الخط المجيء في وجهي في عرفتان وأتلاذان ولكن أنا عاونه معنا أي سمين صح إن أسرع عصبي أسرع كعلنا يسولو التفكير والصبر وبعدين قدمه ما عرفها waayo qof kasta wuxuu yahay maaragtay cid bedeli karta malaha maanta wax kasta aniga aan maaragtay ama dhibaato kasta ijaarta cid bedeli karta malaha aniga kalsoona alxamdulillah videogan ana cabdi maaragtay ka codsaday ninka Cabdi Xafiid anana soo raadiyay anana la soo xiriiray maaragtay waana ku qanacsanay videoga in laga duubo وهاجاك جت فرا بدن waxay leeyihiin codka ayaa xun ayay leeyihiin daawadayaal codka waxa weey meel hawo ayaan fadhinaa dabayl ah marka saa awgeed baa laga yaabaa inuu xun yahay midada ka aanu reemiyo baalkan live ka si fiican ma aqaano ka raali ahaada aniga hadda ay maqlaysaan fadlan one soo qora Okay, Sahib, waxay leeyihiin voice is breaking.
videoga inaan joojinay noqonaysa hal mar kaadi si aad nagu xunaato taabo subscribe